wardegdega daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan commandoska danab iyo kuwa daraawiisha Jubbaland ayaa xalay howlgalladii ugu ballaarnaa waxa ay ka sameeyeen tuulooyin deegaan hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. nala daawada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiisha Jubbaland oo xilli habeen weeraray fariisimihii kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiisha dowlad goboleedka Jubbaland oo duulaankii ugu cuslaa ku qaaday faliisimo nabadiidku ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. waa xilli habeen ah waxayna ciidanku weerareen faliisimo nabadiidku ay iska abaabulayeen iyadoona ciidanku ay duulaan culus ku qaadeen goobtii ay ku sugnaayeen nabadiidka argagixisada ee Al-Shabaab. saad muuqaalkaba aad ku aragteen ciidanka ayaa habeenimo waxa ay duulaan ku qaadeen goob ay isku urursanayeen argagixisada Al-Shabaab oo xiro ahayd halkaas oo ciidanku ay ka war heleen waxayna ciidanku xalay abaar saacadu markay ahayd 4tii habeenimo ay ku qaadeen dagaal culus halkii nabadiidku ay ku sugnaayeen. rasaas aad u xoogan ayaa la isdhaafsaday waxayna ciidamadu ku guuleysteen inay gudaha u galaan bartii nabadiidku isku urursanayeen. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ama kuwa daraawiisha Jubbaland ayaa waxa ay burburiyeen difaacidii ugu adkaa ee kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen halkaasi waxayna ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen in deegaanadaasi ay ka sameeyaan howlgalladii ugu cuslaa ee xalay waxaana halkaasi lagu dilay ilaa 28 horjoogayaal ah oo ka tirsan qawaarij Al-Shabaab. mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xiriir la sameeyay ayaa wuxuu inoo sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay gulufkii ugu cuslaa xalay ay ku qaadeen tuulooyin hoostaga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. sarkaalkan oo magaciisa aan qarinayna kadib waxa uu inoo sheegay sarkaalkan oo magaciisa qariyay ayaa wuxuu inoo sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay jilibka u dhigeen koox ka tirsan qawaarijta Al-Shabaab kuwaasoo doonayay inay soo weeraraan fariisimo ciidanku ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga gobolka Jubbada Dhexe. wuxuu sarkaalkan inoo xaqiijiyay abaar saacadu markay ahayd 4tii habeenimo ee xalay in duulaan culus ay ku qaadeen xiro weyn oo nabadiidku ku lahaayeen halkaasi. muuqaalada ayaa ka aragteen ciidanka oo dhowr jah ka weeraray xirada waxayna ku guuleysteen ciidamadu inay guud ahaanba halkaasi ay burburiyaan difaacyadii iyadoona ciidamadu ay ku guuleysteen hub iyo saanado military inay ka soo furtaan kooxda qawaarij ah Al-Shabaab. sarkaalkan sidoo kale wuxuu inoo xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiisha Jubbaland ay sidoo kale ku guuleysteen in hub iyo saanado military aad u tiro badan ay ka soo furtaan kooxda waxauna xusay inay gacanta ku soo dhigeen horjoogayaal dhaawac ah oo ka tirsan kooxda qawaarij ah Al-Shabaab. Jubbada Dhexe waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada ba'an ee lagu bartilmaameysanayo kooxda qawaarij ah Al-Shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan agab military oo xirada yaalay waxayna ciidanku sidoo kale ay argagixisadu ka soo furteen gawaari dagaal oo xirada dhex yaalay. ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiisha Jubbaland ayaa sidoo kale howlgalladoodu waxa ay ku sii baahiyeen deegaanka Janay Cabdalle iyo tuulooyin ku dhow oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxayna ciidamadu halkaasi ay ku weerareen fariisimo kooxda nabadiidka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi. wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiisha Jubbaland ay dhowr jah ay ka weerareen tuulooyin hoostaga deegaanka Janay Cabdalle waxayna halkaasi ku bartilmaameeysadeen koox ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab. saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay in howlgalladii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku guuleysteen in deegaano dhowr ah oo halkaasi ka tirsan ay ka sifeeyaan bilaabaan howlgallo sifeyna waxayna ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen inay qaarajiyaan tiro badan oo ka tirsan maleeshiyaadka qawaarij ah Al-Shabaab. Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe waxaa si xawli uga soconaya howlgallada culus oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ku guuleysteen in deegaano dhowr ah ay ka sifeeyaan kooxaha argagixisada ah Al-Shabaab. markana hadaynu aadno deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaa si xawli uga soconaya howlgallada culus oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. wararka aynu ku helayno deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan Gandarshe Jilib marka ilaa dhanaana waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka ay maalmahan halkaasi howlgallo ay ka wadeen. saaka aroortii ayay ciidamadu waxay halkaasi ka sameeyeen howlgalladii ugu cuslaa oo lagu beegsaday fariisimo kooxda nabadiidka ah Al-Shabaab ay ku lahaayeen halkaasi.
sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa cagta mariyay dhowr fariisimooyin nabadiidku ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga Jilib Marka waxayna ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen in howlgaladii saaka ka dhacay deegaanadaasi inay qaarijiyaan afar dhagar qabo oo ka tirsan qawaarji al-shabaab kuwaas oo doonayay inay mina ku aasaan jidadka mar deegaanada dhanaana iyo tuulooyinka hoostaga warka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay saaka gudaha u galeen guri weyn oo ay ku keysanaayeen hub gurigaas oo ku yaalay tuulooyin hoostaga deegaanka dhanaane waxaana gurigaasi lagala dhaxbaxay hub aad u tiro badan oo ay lahaayeen kooxda qawaarji al-shabaab sidoo kale guriga waxaa ku sugnaa horjooge ka tirsan nabadiidka oo ilaalo ka ahaa saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay in ciidanku ay gurigaasi maalmahanba ay ku raad joogeen waxayna ciidanku gurigaasi ka soo bixiyeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ugu horeeyaan qoryaha nooca loo yaqaano BKM-ka ay sabanada halkaas oo ay nabadiidku ku qarsan jireen ama gurigaasi ay ku qarsan jireen hubkaasi aad ku tirada badan saraakiisha ayaa sidoo kale waxay noo xaqiijiyeen in hubkaasi ay haatan gacanta ay ku hayaan Jilib Marka gandarsho ilaa dhanaane waxaa si xawli ah uga soconaya howlgalada culus oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha ayaa sidoo kale waxay noo xaqiijiyeen in ciidanku maalmahan bay dhaqaaqyadii ugu xooganaa halkaasi ay ka wadaan sidoo kale wararkaynu ku helayno deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in saaka aroortii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgaladii ugu cuslaa ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka ayaa subaxii hore ee saaka ku jarmaaday fariisimo nabadiidku ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidanku ay ku guuleysteen inay jihooyin dhowr ah ay ka weeraraan fariisimo nabadiidku halkaas ay ku lahaayeen saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay in ciidanku howlgalada ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee Cali Fool Dheere waxayna ciidanku ku guuleysteen halkaas ay ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab sidoo kale ciidamadu waxay ku faafeen tuulooyin hoostaga Ceel Cali Axmed iyo Ceel Baraf halkaas oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan kooxda qawaarij ah ee al-shabaab howlgalada ayaa waxay ku sii baaheen tuulooyin hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona ciidanku ay ku guuleysteen dhanka dhulka webiga inay ka sameeyaan amjiinka webiga ee Shabeellaha Dhexe howlgallo culus oo lagu baacsanayo kooxda argagixisada ee al-shabaab howlgalada oo saaka ka dhacay tuulooyin hoostaga deegaanka Ceel Cali Axmed ayaa waxay sheegayaan in ciidanku ay saaka gudaha u galeen deegaankaasi waxayna ciidanku ay ku guuleysteen inay burburiyaan saldhigii argagixisadu ay ku lahaayeen deegaanka Ceel Cali Axmed waxayna sidoo kale ciidanku saldhiga kala soo baxeen hub iyo saanado military oo ay ka careen kooxda qawaarij ah ee al-shabaab Shabeellaha Dhexe waxa ay kamid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga wadaan howlgalada lagu bartilmaameysanayo kooxaha qawaarij ah ee al-shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen deegaanadaasi inay ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saaka aroortii howlgaladii ugu cuslaa waxa ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose aanu ka tilmaami karno deegaanka Basra halkaas oo lagu tuhunsan yahay inay soo gaareen koox ka tirsan qawaarij al-shabaab ciidanka uu hayay xogta kooxdan ayaa ku weeraray goobta ay soo gaareen waxayna ciidanku ka reebteen gaari hoomaya oo ay nabadiidku ku soo duuleen sidoo kale ciidanka ayaa gaarigaasi waxay kala dhaxbaxeen dhowr qoryo nooca loo yaqaano BKM-ka iyo AK47 waxayna sidoo kale ciidanku ay ku guuleysteen in halkaasi ay ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab guud ahaan gobolada dalka qaasatan gobolka Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe Hiiraan waxaa goboladaasi si xawli ah uga soconaya howlgalada ay wadaan ciidanka xoogga dalka iyadoona ciidanku ay guulo waaweyn ay ka gaareen markana hadaynu aadno deegaano ka tirsan gobolka Mudug ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta Jubbaland iyo kuwa daraawiishta Galmudug ayaa howlgallo culus waxa ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug koonfurta gobolka Mudug ayaa ciidamadu waxa ay ka sameeyeen howlgalladii ugu cuslaa waxayna ciidanka commandoska darab ururkiisa lixaad ay dhowr jiho oo ka tirsan deegaanka Bacadweyne ay ku guuleysteen inay dagaalo kula galaan kooxda nabadiidka ah al-shabaab sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta Galmudug ayaa ku guuleystay in howlgaladooda ay ku soo bilaariyaan deegaanada Duulnaaye iyo Cimaamad iyo Aboorey oo ka wada tirsan gobolka Mudug waxayna halkaasi ay ku beegsadeen koox ka tirsan qawaarij al-shabaab kuwaas oo isku urursanayay deegaanadaasi tuulooyin hoostaga Caad iyo Camaara ay sidoo kale ciidamadu howlgalada ay ka sameeyeen waxayna ciidanku ay ku guuleysteen in tuulooyinkaasi ay ka nadiifiyaan kooxda qawaarij ah ee al-shabaab gobolka Mudug waxa uu kamid yahay goobaha sida weyn ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan dhaqaaqyada xoogan ee lagu la dagaalamayo kooxda qawaarij ah ee al-shabaab saraakiisha daraawiishta Galmudug ayaa inoo xaqiijiyay in howlgaladii saaka ka dhacay tuulooyin hoostaga
degmada bacadweyne ay ku guuleysteen inay ku qaarijiyaan 4 dhagar qabo oo ka tirsan kooxda khawaarijta ee al-shabaab waxayna halkaasi kasoo furteen hub iyo saanado military. sidoo kale howlgallada ayaa waxa ay ka dhaceen tuulooyin hoostaga deegaanka bacadweyne oo aan ku xusi karno cimaamad iyo duunlaaya. sidoo kale waxay howlgalladu ay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo dhagahaya iyo laas gacmey halkaasoo ciidanku ay ka sameeyeen howlgallo sifeyn ah oo lagu baacsanayay kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab. deegaano hoostaga degmada wisil ayaa sidoo kale ciidamada howlgallada ay ka sameeyeen duunlaaya waxay si toos u hoos tagtaa degmada wisil iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta galmudug ay halkaasi ka bilaabeen howlgalladii ugu cuslaa saakay oo lagu bartilmaameysaday kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab. sidoo kale howlgallada ayaa waxa ay ka dhaceen tuulooyin iyo deegaano hoostaga gobolka mudug ayna ku xusi karno tuulooyin hoostaga aan ka xusi karno degmada wisil iyo howlgallada ayaa waxa ay ka dhaceen tuulooyin iyo deegaano hoostaga degmada hobyo waxayna ciidanku halkaasi ka bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinaya amniga guud ahaan gobolada mudug iyo galgaduud shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose waxaa si xawli uga soconaya jibooyinka howlgallada culus oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. hiiraan ayaa ka mid ah goobihii saakay ciidamadu ay howlgallada culus ka sameeyeen waxayna ciidamadu bartilmaameysadeen goobo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saakay ku guuleystay in deegaano ka tirsan gobolka hiiraan qaasatan tuulada lagu magacaabo muqliga iyo deegaano ku dhow ay ka sameeyeen howlgalladii ugu cuslaa waxayna ciidanku beegsadeen goobo fariisamo oo ahaa nabadiidka al-shabaab. guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli iyo dardar looga soconaya gulufyada ka dhanka ah kooxaha khawaarijta ee al-shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaanada iyo tuulooyinka dhaca gobolada dalka ay ka wadaan howlgalladii ugu cuslaa oo lagu baacsanayay kooxda khawaarijta ee al-shabaab. daawadayaal hadduu janalkeenu idin soo gaaro fadlan subscribe inoo saara muuqaalkana meel dheer inoo gaarsiiya waa mahadsantihiin.